siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya aan weli degnayn uu waddanku ka soconayo khilaaf siyaasadeed ee ku saleysan hanaankii waxqabadka ee dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa mooshin ka geeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya mooshinka oo lagu saleeyay musuqmaasuq iyo khiyaano qaran laakiin sawirka runta ah ee Soomaaliya waa ka duwan yahay dadka waxay u dareereen inay wax qabsadaan waxaa kor u kacay hamigii dadka Soomaaliyeed aan dowladda ku tiirsaneen sida ganacsatada, xoogsatada, muruqmaalka iyo qaybaha ururada bulshada iyo shaqaalaha dowladda. Waxaa dhexda ka baxay habkii ku tiirsanaanta siyaasadeed, waxaa lumay nuxurkii isqabqabsiga siyaasadeed iyo mooshinkii, waxaana loo dhaqaaqay in dib loo igleelo Soomaali cusub iyadoona la baalmaray ku tiirsanaanta siyaasadda. waxaa soo ifbaxay ganacsade shirkado waaweyn oo qaban karo howlihii dowladda loogana baahnaa oo ahaa horumarinta iyo dib u dhiska dalka. halkan waa mashruuca dhismaha Daarusalaam waxaa hirgeliyey ganacsato Soomaaliyeed oo isku tagay inay horumariyaan dalkooda. mashruucani waa hanaan ku dhisan guriyeen ku saleysan deegaameen waxaana ku baxay hanti fara badan oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo isku tagay kuwa oo kaalin ka qaadanayo dib u dhiska dalkooda. horey waxaa u jira mashaariic kuwan la mid ah oo lagu qayb qaadanayo bilcisamiga magaalada Muqdisho. dadkan ganacsatada ah iyaga ayaa gartay inay qaataan kaalintoodii si kor loogu qaado tayada iyo dib u dhiska Soomaaliyeed si loogu fududeeyo dadka Soomaaliyeed inay helaan guryo leh tayo dhammaan adeegii loo baahnaa. sidan oo kale Daarusalaam City waa real estate oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. qof kasta ay u furan tahay inay maal gashato Daarusalaam City waxaan sameynay waxaan u diyaarnay jid laami ah waxaan diyaarnay adeegga bulshada oo dhan. sidoo kale waxay ganacsatadu ay dhiseen deegaano cusub iyo xaafado dhan adeegga bulshada. dhanka horumarinta ka soko magaalada Muqdisho way soo hagaagaysaa kadib markii shacabka Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen in lagama maarmaan ay tahay in ammaankooda ay kaalin ku yeeshaan si looga badbaado looguna gudbo marxaladaha khatarta ah. dadka ayaa habeenkii socdaan waxaa la helaa adeegga bulshada oo dhammaystiran. marxaladani waxay ka duwan tahay tii hore. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka jiro koronto ku filan 24 saac, biyo ku filan iyo cisbitaallo ku filan. dadka iyo gaadiidka dadweynaha oo iskaga goosaya degmooyinka magaalada Muqdisho. degmooyinka magaalada Muqdisho oo dhan gaadiidka waxa uu socon jiray maalintii oo keliya laakiin hadda waxa uu socdaa ilaa habeenkii xilli dambe. goobtan waa mid ka mid ah maqaayadaha waaweyn ee ku yaala xeebta Liida ee ku taala degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. maqaayadani waxay furan tahay habeenkii ilaa 12 saac ee saq dhexe ee habeenkii waxaa ku caweeyay qoysas iyo saaxiibo u soo casho doonto. mar uu TV-ga caalamiga Universal u buuqday ayaan weydiiyey qaar ka mid ah dareenkooda sida uu yahay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aadna waan ugu helay runtii nabadda waxyaabaha wanaagga ah oo ay ka shaqaynayaan sidoo kale waxyaabaha aan kula kulmay halkan ee horumar kale magaalada Muqdisho bariye aan joogay walow aan magaalooyin badan aan soo maray oo Afrika iyo qaybo kale leh aad iyo aad ayay runtii farxad iigu tahay. meelaha kale meelaha lagu nasto way qof dadka shaqeeya ama ardayda markay dareemaan magaalada iska badan tahay meelaha kale shawaadida lahaa ama beacheska dadka way yimaadaan stresski iyo sheeko qaas asxaabta ka sheekaysanayeen isku yimaadaan. Liida ma ahan habeenkii oo kaliya ee waxaa iskugu imaado dadka maalintii kumanaan dada oo u soo dalxiis tago kuwa inta badan ka imaada dalka dibadiisa. ka soko dhismayaasha iyo tallaabooyinka horumarineed iyo ammaanka soo hagaagayo magaalada Muqdisho. dhanka kale waxaa magaalada ku soo qulqulayo fanaaniin caan ku ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo kaalin ka qaadanayo hanaanka maslaxiyada dadka Soomaaliyeed. halkan waa garoonka weyn ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ka soo degay fanaanka Nimcaan Hilaac si uu ugu qayb qaato bandhig faneed. maasha Allah marka hore waxaan leeyahay Soomaaliya nabad. horta waa markii ugu horeysay aan imaado Muqdisho ruuxantii aad baan ugu faraxsanahay. sawirkaan haystay waa qiyaasi kara horta cabsida ku jirtay laakiin maasha Allah walahi dhulku waa nabad insha Allah waxaan aan jeclaystay ama in badan aan qalbiga ku hayay inaan marno aga dhigo intii way suurta gashay. shaki kuma jiro ammaanka magaalada Muqdisho inuu soo hagaagayo kadib markii shacabka Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen in ay qabsadaan danahooda si loo gaaro hanaan ku dhisan nabad iyo wada noolaansho. inkastoo siyaasaddu ayna lahayn waji hagaagsan oo jiri karo khilaaf wax u dhimi karo ammaanka iyo horumarinta dadka haddana dadku qaar waxgaradka waxay ka digayaan khatar dib u dhaca
waxayna ugu baaqayaan kooxaha siyaasiyiinta in loo ogolaado nolol iyo nabad ku noolaansho si dib loo celin shacabkii hore u socodka ahaa ee gartay danahooda.